السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام يا صحابتي ده ميل كستوى دونك كجوبتان وحيدن لي هاي خير بركة يا نوران دماني بإذن الله الرحمن. وأنا جو أفاد مورسن شيخ محمد جنال كداوان سانا وسيروك شيخ جنال وحيدن لي هاي سود وذا دمانتين الله الرحمن كوحان كبري نعفي عفي ماد إنه إلهي الرحمن هنصيو دنبي جني دنبي ورد كني دنبي مؤمنين تو الله الرحمن كإنه دافو الله الرحمن كوحان ويدي سنة إن رمضان كإنه نقبله لما أنت مسلمين أودن عالم الإسلامي سومالي محمد أودن ومدينا الصوماليات دلكنا نبض الله نوقدقو خيرك الله نوافجيو سحبتي دو واحد إنكو عد سنة لينكي هوس أن إدينكو سو شرقريو هوس أن سو ديغرونا هانتي إيراعا سبسكرايبنا إيسيا سي إقباداسي ولا جانقادو ومدى إن شاء الله بإذن الله الرحمن أدبايدين سلامية دمانتين رونهانتي وحربا إنان كهالله وحيالة بدنون أركي إن قفك الصوماليات إن موادين مديسو وحقر صوما معها قفك الصوماليات إن نقضى ودني وحفظت أو سهلا معها ودني وحو قفك كنا قنكرا إنو وحوالبو هالكا إسكاديغو أو قبيل يا قبيالد ku salaysan tahay intaba run ahaantii waxaan arkay hooyo Soomaaliyeed oo qurux badan oo sharaf badan oo wanaagsan oo run ahaantii aad iyo aad uga hadlayso qabyaalada ama islaantii maalintii hore aan soo dhigay ee lahayd 590 wiil baan haystaa 80 wiil baan haystaa oo filla Soomaaliya galaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajana waan ka soo saaray islaantii lahayd إن جوابته مالتي دويت كبحينيي رون أهانتي قف يقانو أو قرانيو وحي تهي أيان أركي وهوي الصوماليات هوي دا الصوماليات إن قربه جوكته هوي دا الصوماليات وحك أشقينا ساقليهن BSW دا اللي يراهدو قريها دادك لوغو تاقو أما دادك حنونسان أما دادك واييلك أما دادك ريتايرك سوقاتي أما دادك ربا إن لا دريالو أي قريوه دا ugu tagaan oo u soo hagaajiyaan u qabeeyaan kaadida ka bixiyaan dhaybarada ka bedelaan hooyada Soomaaliyeed ma sha Allah tabarakallah waxay leedahay maanta ma aanan sameyn lahayn haddii uu dhulkayga nabad ii ahaan lahaa maanta ma aan sameyn lahayn waxa aan sameynayo maanta heerka aan jooga ma aan joogi lahayn hadduu dhulkayga nabad ii yahay waxaanan taageersanahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa hooyo Soomaaliyeed وحي مقالة مقصو كدعا وحي لو كلا يرير الصومالي محمد عاصمة اي دقنيت جرير اي تلح كما لو عاصميت كالو عاص صاحب مفهم يصير قبلين كان درير صار ويلا اللي بيجري ويلاي نا ويلاي ما قادس نا ويلاي ما قادس هالدهي ويلا قيام سويسا مفهم بيك ولا الصومالي هذا هون صومالي هذا قبيل اقول كوري دقنو مالس كدقنيت لو صقلياتي هي باش دنجالويك باك باش السينا انا تاغنا مقال بقسو الا الله يقطعوا الا انا فوق نخضو ما فهميسين انت قبر جاين عيد way ka badan tahay waxba geysan ma fahmaysin aniga qabiil mar la igu soo gabanay ma fahmaysin odayaasha sharafta leh oo beesha hawiye waxa noocaas oo kale oo qodbad inta idin soo istaago sharaftiin iyo karaamadiina ummadda Soomaaliyeed aad maxay ahayd si lagu si kala fogeynaa in horta maanta odayaal intaas hool fadhiya damiir shaqaysa ayaa loo baahan yahay naagta in hor istaagana hub qaata ee dagaalamada dhaysana yaa dadkeeda ayda ay ku artirsato xeer gaariyaal hawga duuryaamina buuxo masaakiina buuxo marasa buuxo dada dabkooda shadina buuxo agoonta buuxo kuwaas waxa tarto horta meeshas markaas madax ka noqon karta laakiin Soomaaliya burburtay waxaas ka dambeeyay aan doon lagu dhisay ku meel gaar iyo nini wax lagu boobi karo iyo warqad lagu samaysan karta ma jirto mooryaanta loogeen habarta xuna mooryaanta islaantaan inta ku fadhiyo saaxiib saar hawiyana ida ku dagaysan ma jirto naagta kula hadlaysa naagta 6 saac maalmeed dadkeeda raggeeda ku baabiinaysa magaalada Muqdisho ana runtii idin sheega
amaa nabad helaynaa amaa kala noolaanaynaa raggeena ganacsatada aha kulligood qaxootiga waxay ku yihiin Kenya iyo Uganda iyo Tanzania iyo meel walba iyo maxay ahaydeen wadamadii dalkeena intaan ka wada cararnay aan ku hoyo weyna xasan sheekh dadna ugu soo sokay marka uu joogay halkaasaan kulahay beesha anay ka dhashataa mimicsi jir waa lagu dili jiray kabaa iska ilaaliya wadaniyiin waa dadkaas hadday hal mar dalka gacanta ku dhigaan bes xaniyaha laga siibaay gabdhaheena xataa show xataa kuma dhigi jirtay maalin maqsuuc maalin xasan sheekh marka uu joogay haweenimada shaqaynaysa maxay tahay daarad dal nuurs waa inuu nagu dhex jira daarad ayaa dan noogu jirta hadda daarad meesha ka baxa hubkiyaa laysu qaadana waa laysu baabi'inaya saaxiib mooryaana cid la noolaanaysa ma jirto annagaana u baahan daarad maxamed cabdilaahi farmaajan annagaa u baahan ciyaarka waa beri waay xuduntiisan meeshay ku duwanta naagta qaxootiga waa naagta ka soo gashay caasimadda faaruqay saaxiibe adaa qaxootiye faaruqay caasimadda ee gaarayta furaa ku dhimato tuulada ka maasha allah maasha allah tabaaraka allah waxaan leeyahay waa hooyo Soomaaliyeed oo wadaniyad ah runtii kana dhawaajinayso Soomaaliya iyo dhibka ay soo martay iyo maanta marxaladda ay ku jirto iyo heerka looga baahan yahay in looga baxo ama looga gudbo run ahaantii wax badan baan waxaan aragnaa in maxamed cabdulaahi farmaajo loogu dhagan yahay beel ahaan loogu dhagan yahay heebsooc loogu dhagan yahay waa nin ka soo jeedo beeshaasi ama beesha daarood laakiin asaga waxaaba oga daran dadka kale ee maanta uu ku dhex jiro waxaa oga daran tu asaga ka dhashay baa mucaaradka koowaad ku ah baa dhibaatada ku wado baa waxba uu ka qaban laaya oo labada lugood ku dhagan waxaan arkayay oo kale run ahaantii farxiyo daahir oo iyadana hadlayso gabadhaasi beesheeda ha ahaata beel kalena ha ahaatee runta ayay ka hadashaa iyo sheegtaa qofka bini aadanka inuu runta sheegana aad bay u fiicanta beeshaada markaad qaldan tahay waa inaad dhihi kartid beeshayday waad qaldan tahay sida hadda abtiga cabdi xirsi oo kale kow dadkiisu ka bilaabaa beeshu isaga ka soo jeedo ka bilaabaa oo u dhahaa beeshaydu waa qaldan tahay beeshaydu way qaldan tahay beeshayda qaladkaa kuma raacsani walow aan arkay isagoo lagu dhagan yahay oo uu ku dhagan yahay wiilka maxamed cali la leeyahay oon dhegaysanin weli kaliibkiisoon rabay inaan dhegaysto oon bal isleeyahay bal maanta sheekh cabdi xirsi muxuu ku haystaa maxaan ku idhahdaa maxamed cali wiilka ay ugu qoran tahay difaac qaran baa tahay asna waa difaac qaran waa difaaci diinta waa difaaci ummadda waa difaaci maxaan ku idhahdaa islaamka intaba wuxuu u yahay difaac sheekh cabdi xirsi mana aha sheekh maanta qabyaalad iyo qabiil ku dhaqmaye runta ayuu ka sheegaa macal dadkiisa allaha ka dhigay kan dadka ugu soo xigo runta ka sheega oo u dhaha war wuu ku qaldan yahay waxaas ayada ah aniga beeshayda waa ku qaldan tahay sideeda bannaanba waxaan kaloo leeyahay run ahaantii oon rabaa inaan iyadana ka hadlo waxaan arkayay dad badan oo la kala jabiyey sida fahad yaasiin beesha uu ka soo jeedo oo laba group u kala jaban fahad yaasiin waa wadani beesha uu ka soo jeedo keliya ma fiirsanaysa Soomaali oo dhan baa fiirsanaysa haddaba la eeg Soomaali oo dhan ayaa fahad yaasiin fiirsanayso ma aha waxay beeshiisa keliya fiirsanayso beeshiisa inta la kala jabiyey in qaybo lacag inta la soo siiyey ay leeyihiin ra'iisul wasaarahan raacsanhayo waa qaadacnay maxaan ku rahdaa kursigii fahad yaasiin kursigii ilaahay baa u dartoo siiyey idinku ha ka hor istaagina Soomaali oo dhan baana wadatee waxa idinku keligiin wadata ma aha mise xagga iyaga loo soo riixaya fahadka laftankiisa waa u reer abti reerkan baa la leeyahay reerkani la saaran yahay baa u reer abtiya miyaa la leeyahay oo macal reerkiisa xaggana u soo riixayaan waa garan waaye xaajadu xaggee u socotaa dhankee u socoto waa fahmi waay ilaa haddee nin geesiya ummadda Soomaaliyeed oo dhan rabo ay rabto oo la wada daba taagan yahay oo la rabo in meel uu gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed in beeshiisii intii loo soo adeegsado maxamed cabdulaahi farmaajo ta ku dhacdo baa wiilkiinana ku dhici
marka idinka inta laydin soo adeegsado afar oday oo tuuga ah lacag inta loo qaybiyo la yidhaahdo shir jaraa'id soo saara shirkan jaraa'id baban soo nacaya jinni madow ha idin tirtira gidigiine fahad yaasiin ka fuqa fahad yaasiin odayaasha halkaa iyo dhuunta u dhinto fahad yaasiin ka fuqo iska dhaafa oo faraha ka qaada islaantii lahayd 580 wiil baan haystaana oo 91 baa loo noqonayaana sharwaar adigu ha ku raaco 91 adigu ku noqo oo adiga wiilkaa dhashakeen oo dagaalka geli oo abaanduuro ka noqo adigu oo wiilkaaga ha ka noqdo oo odagaaga ha ka noqdo oo walaalkaa ha ka noqdo oo inta ehel iyo qaraabo adiga kuugu xigta ha ka noqoto markaas ayay Soomaali qaxaysaa beesha maanta joogto muqdisho ee la leeyahay waxay hayaan madaxnimada waa shalay dadkii la soo ceersaday waa dadkii guryahoodii la dhacay waa dadkii gabdhahoodii la laayay wiilashoodii la laayay laami karkarsan inta la karkariyo lagu ridaayay wixii iyo cuqdadii maanta ma xasuustaan maanta ma gartaan maanta ma ogo dhibkii shalay ku dhacay maanta ma ogo maanta waxay diyaar u yihiin midnimo Soomaaliyeed inay helaan iyo calankaas buluuga ah inuu carrada ka lusho bay maanta diyaar u yihiin wixii shalay lagu soo sameeyay iyo guryahoodii la dhacay midnaba ma uu safiirinina maanta markuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka noqday bay 19 guri oo hor le ka dhisteen oo ay degan yihiin oo ay rabaan inay ku intifaacaan waa shalay meeshii laga qaxiyay waa meeshii laga soo kiciyay waa meeshii guryahoodii looga qaatay isma aysan dhihin muqdisho shalay waa la idinku dhacay maanta ha tegina maanta waa taagan yihiin maalintay ku soo laabteen iyo maanta ka dhaxlana dood iyo dagaal iyo wareer iyo waxaa socoto 91 iyo goodin iyo cagajuglayn iyo wareede 91 cidna waxa uma tarto 91 adiga intaad iska dishaa ka badan war adiga inta dib soo martaa ka badan war anigu waan kabsadayba waan kabsaday wallahi waan kabsaday oo meel baan samaystay oo meel baan iska soo saaray oo caalamkan dhinac ka raacay oo dal iyo dibadba waa layga aqoonsaday oo waxaan ahay baan isa soo bandhigay qofka bini aadanka wuxuu yahay inuu isa soo bandhigo aad bay u fiicanta marka reerkani gabadhan waxay tiri waa na diiriyeen oo diirsha u bixiyay tiri daaroodoo ku diirsana daryeela la dhahaa bay tiri waa runtii beenteed ma qabyaaladay kaa tahay kanay kaa tahay hadhow waa lay dhahayaa aynow inay dhahaysiin sax laakiin ma diidaniyo ilaa isu qara way fiicanta gabadhanba waa gabar reerkaas ka soo jeedo oo sharaf iyo cizi iyo karaamo leh ogsoon Soomaalinimada waxay tahay ogsoon waxa meeshii ka dhacayayna joogtay oo ogeed anagu xabarmaba tegin babana arag mana soo marin meeshaan ku dhashay waan ka soo baxay oo ka soo tagay waxyaalo badan oo waxa fiican qofka bini aadamka ah uu ka gaabsado hooyo markaa tahay oo rafaad soo marto silac soo marto qax soo aragtay dib soo aragtay balaayo soo aragtay haddaadan guri dadeed iyo xoolo dadeed iyo xoolo islaameed haysanin kuma aadan indha caddayn lahayn dagaal iyo buuq iyo qayli iyo wareer laakiin markuu qofka intuu gurigiisii ka soo baxay baadiye ka soo orday qori soo qaatay guri saroo reere leeyihiin qabsaday oo iska dhex degay hadda cidna kaama kicin karto waxaad isleedahay berri haddii la soo noqdo xaqa amuu kugu soo degaa oo lagu dhahaa gurigan waa gurigii reer hebel berigii ama lagu sheegaa waa lagu sheegi waa lagaa daba keeni 401kaaga dhag gurigan waxaad ku heshay iyo sababtuu kuugu yimi iyo bililiqadaad ku soo degtay intaba waa la iskaga daba imaanaya waxaan leeyahay dawladnimada Soomaaliyeed hadba kii imaada anaga noo talinay Xasan Sheekh maanta hadduu ku soo noqdo waa madaxweynenimana waa aqoonsanayna Shariif hadduu ku soo noqdo sidoo kale waa madaxweynenimana waa aqoonsanayna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intuu dhamaysanaya ma la sugi la'yahay inta doorasho laga qabanayo taada kale ma u malaysaa Rooble inuu isagu sii seeta dheeraysanayo inuu asaga xargaha sii daadsanayo inuu asagu meesha rajo ka qabo oo biilkan yare uu qaadanayo mishaarkan yare uu qaadanayo inay isagu wax u tahay ma u malaysaa oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu asagaba meesha ku hayo taa maxaa u garan weydeen una ogaan weydeen
محمد عبد الله فرماجو محمد حسين روبلا كوهاي because مرة إن مشاركة وكجو هدي مدحوينا للدورته ده مشاركة كجو أيوه إلا والله قدر هاي سنة ياي مدحوينا عصبة يمي رئيس الوزراء عصبة الرد سنة ياي ما إسقى ربا مركا مشاركة وصعد إنه كجو ما كجو إنه كجو أمر ربا وحو ربا مشاركي سينو سيقاته محمد عبد الله فرماجنا سيدي جرانجرتي إنه دبق القشة أنت أمر ربا وكلية واحد إنك قلت جيا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته قول يا جبني مقاري أيامبا ومد الصوماليات نوحالي ملك استوي جوكتبه برواقو كصوما كنا عفرا عفية عفمات سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.